ciidamada midowga Afrika amisom ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waxaana si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow mudanayaal ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedka Galmudug qaybtooda ku sugan Dhuusamareeb qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa si heer sare u soo dhaweeyay ciidamada midowga Afrika amisom iyagoo ku dhawaaqay ereyo si weyn u dhiirigelinayay ciidamada soo gaarista goobta ay yimaadeen ay tahay mid laga rabo ugu horeyntii goobta waxaa ka hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo si guud u sheegay ciidamada amisom ay soo gaareen deegaanada Galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb maanta halkan magaalada Dhuusamareeb waxaa noogu yimid ciidamo ka socoto amisom oo horkacayo taliyaha koowaad ee amisom iyo saraakiil kale wuxuuna daba socday isbuuc ka hor halkan waxay ku yimaadeen sidoo kale booqashaasna waxay sidii uu kurgeli lahaayeen sida halkan ay imaan lahaayeen ee uu qayb qaadan lahaayeen hanaanka geedi socodka dib u dhiska maamul goboleedka Galmudug inta kadib goobtiina waxaa ka hadlay senator Jawaahir Ahmed Cilmi oo ka tirsan golaha aqalka sare dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaan Cabdixakiin Macallin Axmed kaalintii muxuu ahaa amisom iyo kaalintii muxuu ahaa hiil walaal iyo dhammaan aad nagala qayb qaadantiin nala gaadiisin geedi socodkaas dadka qabay inaan muxuu ahaa amisom looga baahnayn deegaankan ama muxuu ahaa dadka si kale ugu sheegayana waxaan rabnaa inaad muujino maanta adoo ku hadlaya magaca dadka deegaankan xildhibaanada laga soo doortaan nahay waxaan rabnaa inaan u sheegno ama indhooda ay ku arkaan inaan reer Galmudug aysan diidanayn ciidamada amisom isla markaas kaba si deeranay reer Djibouti oo hiil walaal ah inaysan diidanayn adinkana gurigiina waa timaadeen waxaa sharaf noo ah maanta in amisom ay timaado Dhuusamareeb waxaa sharaf noo ah inay ciidamada walaalaheena hiil walaal ee reer Djibouti inay yimaadaan halkan runtii waan soo dhaweynaynaa aad baa loogu faraxsan yahay imaanshihiina waxaa timaadeen gurigiinii waxaa timaadeen deegaankiinii awalna waad joogteen haddana waad timaadeen magaalo cusub baa timaadeen marka waan idinku soo dhaweynaynaa halkan waa meel la idinka jecel yahay waa meel la idinka soo dhaweynayo guud ahaan dalka Soomaaliya inta kadib waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidamada amisom qaybta ka howlgalaysa Dhuusamareeb gaashaanle dhexe Cusmaan iyo taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka markuu horeysay nimaadna maahin in badan baan nimidnay awood tagnay Dhuusamareeb laba goor iyo saddex goor waxaan nimidnay Muujaan si fiican baan noo soo dhaweeyay imikana maanta si fiican baan noo soo dhaweeyay dadka reer Galmudug iyo dadka reer Djibouti xiriir fiican baa ka dhaxeeya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano soo dhaweyntan anagoo matalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad aad baan ugu faraxsanahay waxaan ognahay shaqooyinka ka soo qabteen ciidamada hiil walaal Hiiraan iyo siday u taageereen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaaba annaguna intii oo kale aan rajeynayna inay nala qaban doonaan taliyaha ciidamada amisom iyo saraakiil ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa shalay soo gaaray magaalada Dhuusamareeb si ay kaga qayb qaataan dadaalada adkeynta amniga caasimadda dowlad goboleedka Galmudug iyo goobaha lagu qabanayo shirweynaha dib u heshiisiinta Jamaal Macallin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb